سمعتنا إسرائيل برجع دحدوك كشيء دولة عظيمة ويبقى واضح دولة بهيبة دولة عصر ويبقى واضح دولة أي خطر جريئة جبهة بنوات إن وحلا إلى هذا قبضة حديدية مريكا كسية إلى العرك وحكا عجا إيمان كلام مجري فرحات كنا ولا لا وحي نقطة خبر وكان وحي شيئا بقول كيبة تضباطا ويسكي قبتين بقول كيبة صدم النفط واحد دافع ومحي وقناب وصواريخ يرير ولو سمي قزا marka arintu ku wada dhacday waxaan qodbadii waxay noqotay khuraafaad xaqiiqo ma noqon waxa ugu weyn ee maanta islaamka haystaa waxa weeyaan waa arinta qazawiyad maarinta qudus waa al-aqsa waa masaajidka saddexaad waa inaad dadka wacyigooga aqoontooda kor loo qaado si u fahmaan maxaa ka dhacaya dalka Palestine maxay tahay 1897 shirkii uga dhacay ururka Sahyuuniyadda wuxuu yiri madaxweynaha xukuumada waqtigaas Sayruda Herzl khudbadu jeediyay wuxuu ku yiri konton sano dabadeed تقوم دولة إسرائيل في فلسطين ويكعد دولة إسرائيل هاي كعدتها فلسطين نكاس مقدر كو يقان ميلاهي بول نصوت اليمي تخطيط كبار بلانيفيكيشن كي وحيور لما لغا شقي ولا هبي غورمي كعد دولة دي إسرائيل كون سقال بقول سقاش تضباطا يشان تضباطا واحد عدد كون سقال بقول أفرتني تضباطي ومركي ولكنتو سنة كدب بدادكي بعدين مددنا waxaa socotay khudadii lagu soo dejinayay dadka kadibna waa la iilaaniyay 48 dowladda Israa'iil waa la iilaaniyay declaration ma xuruubin waa la iilaaniyay ila meel ilaahayna bay yimaadeen way iska iilaamiyeen dowlad baan noqonay bilad okay marka dowladda markii la iilaamiyay kadib waxaa la bilaabay saddex khudo oo laga shaqeeyay al-khudatu al-ula waxa weeyaan isticmaalka Israa'iil lama yiraahdo isticmaal سيد بدر وقويس احتلال معها كلمة احتلال وغلط ذاتك لو لاقيا واحلال ما هي كلمة احتلال هي احلال ما هي كلمة احتلال هو حوي دول قبصه markay dadku ku fahmaan ka kac Falastiiniintina maxaa leeyahay ihlaal meeshan dad baan keenana maxaa yeelay dadkan dhulkan dad male dadku laana tii kala markaa dhacday ihlaalku muxuu keensanayaa iqsaa in la iriyo taajiir in dhulka dadka laga saaro waa been dhulka carabtu way iibiyeen waxaas waa been weyn laakiin waa laga saaray dhul baa laga saaray iyo khudo lala dejiyay madaxda carabta waqtiga carabta xukumaysa oo waxaa qorina nin qoray kitaab uu ka qoray dagaalkii carabta uu ka qoray markuu dhici jiray waxayna yuhuuddu oran jireen dadka wadaadada un baa ka cabsoonaay oo ikhwaanku ay ku jireen ee waxa kaleeto dhan waxba nooma sheegay laana wala sugiya kuwaas marka taa baa dhacday marka ihlaal baa dhacay dad baa la keenay iqsaa baa dhacay dadkii dhulkan waa laga heliyay marka dad baa lagu abuuray dad baa laga xeeyay arintaasi isagu suurtagali in dad laga kaxeeyo dadna la keeno waa in la keeno waxa dhacdo falsafada al-istitaan istitaanku waa maxay waa dad dejin waa in dhulka dad la dejiyo dad aan jirin waa in la keeno oo dhado dhulkan ininka lahaan jira goorma 5,000 sano 4,000 sano goor baa lahaan jirtay ma aha shalay toole ma aha 4,000 sano kii shalay lahaana laga qaado dhulkan oo kale dhulka yaa ka yiri qofna ka meeriyin laakiin waa saabiilay bas hakada waxay mid dad indha buluuga leh oo baahayn maartay Israa'iil asal aan ahayn waxay yimaadeen dhul ayna lahayn dhulka marka waxa lagu yiri kaalaya qabsada dhulkan baan waa dhulkii lagu la qaaday marka waxa la sameeyay saddex ustuuro saddex been ilaahay buu nabi Yacquub ka saxaxay inaad dhulka Falastiin iyo inta ka weyn baad leedihiin halkee leedihiin meesha uu Niilku ka bilaabo waa Ethiopia dagaalka nimanka Masar iyo Ethiopia isku hayaan meesha lagu leeyahay maartay waxa laga dhisayaa maartay sidka laga dhisayo halka ka bilow ilaa Furaat waa Iraq inta u dhaxaysa ilaa Turkiya xataa ilaahay wuxuu siiyay inuu idin siiyay waxa linaslika urti ma bayna nahrayn labada webi dhexdooda iyaan siiyay Yacquub waxayna ku qoran kitaabta Talmuudka Yacquub iyo waxa isfeerfeeray la hawla wala quwwata iyo nabi ilaahi marka feerfeerkii wuxuu ku dhamaaday inuu ilaahay ka tanaasulo oo dhado dhulkan dadkaaga siinaya xoog bay ku qaateen walidaalika waxay aaminsan yihiin dhul ilaahay buu xoog ka soo qaadeen bini aadam xoog kama qaadi karay marka arinta koobaadi waa arinta waxay sameeyeen waxa loo yaqaano ustuura diiniya labo hadda dadkan ustuuradan diiniga sameeynaya maaha wadaadda ma waa cilmaaniyiin goor maartay goriyan iyo goldamaayr iyo Herzl iyo kullu mulxidiin baa ilaahay baa aaminsaneen laakiin waxay og yihiin dadkoogu inay wax ku kicin karayaan arinta labaad waxay sameeyeen waxa loo yaqaano ustuura maxaa taariikhiya ay leeyihiin dhulkan annaka lahayn cilmiyan maanta waxa la ogaaday dhulka markii uu nabi Ibraahim yimid yaa dhalay iyaga waxaa dhalay Ibraahim wuxuu dhalay Isxaaqna muxuu dhalay Yacquubna muxuu dhalay Yahuuda abtirsiintu waa sida iyaga okay dhulkan yaa deganaa qabl
إبراهيم يبوسيين بدك قدس إياه بسي يبوسيين بسي وتاريخ قرن يبوسيين وايو وعرب كنعانيين وايو وعرب وعربته والعرب عرفتي قوم عاد وعرفتي وولين وقرن إلى فيها قوما جبارين كواسي نبي وحق قرن كتاب كتوراة مركو يمدي نبي إبراهيم عليه السلام أراد القدس مركو يمدي واركي وحولي لي واحد يمدي وطن آن غريب كواهي قريب بوه نبي إبراهيم markay saar dhimatay calayhi salaam islaantiisii markay dhimatay iyadoo 125 jira kitaabka kutubta ku qortay yahuuda wax la aasuu waayey li'annahu kaana qariiban dhulka qariib buu lama garanay yaa deganaa yabuusiyiinta deganaa man hum yabuusiyuun waxay ka yimaadeen jasiiratul arab dhulkan yaa lahaa yabuusiyiinta lahaa yaa asaasay magaalada qudus yabuusiyiinta asaasay yaa asaasay magaalada la yidhaahdo safad iyo allad la yidhaahdo waxaa asaasay kancaaniintii waxay ku qoran tahay taariikhda farcaynada يكون قرنتها إلى أساسين ضدكاسي تاريخيا وتاريخ بينه للسبعين ولكن بين دقنين ولا هنجري لها شما وين دقنا وشيء لكن لها شو شيء آخر ضد بين لا دقنا وشيء لكن وان حكم يجري وشيء آخر نبي سليمان يا النبي داود بتضباط سنة حكم بس أنت بدور دوس ركع عليه دوك الشام ده برسيل ده أوكي قريت على بعض واتها وأسطورة تاريخية بين بيسمين هلا آخرية ذلك هذا اليبوسيون الكنعانيون iyo taariikhda ay ku lahaayeen gobolka Palestine waxa la yiraahdo qubada xadiidiga ee Mareykanku siiyay ee cirka wax kaaga iman kara ma jiray farxad ku noolaada waxay noqotay khabar kaan waxay sheegeen ciidanka Mareykanku ciidanka Israa'iil waxay sheegeen 90% wixii ay soo tuureysay dawladda Gaza laga soo tuuray waan baabi'inay waxayna raafay 10% wasayadu sheegtay laakiin ragam jaraa'idka ka shaqeeya xorta waxay sheegeen 70% way iska qabteen boqolkiiba 30 ma dhaaftay waxa dhaafay waa maxay waa qanaab waa sawaariikh yar oo lagu sameeyay Gaza marka arintu ku wada dhacday xooyan qubadii waxay noqotay khuraafaad xaqiiqo ma noqon waa cool labo arinta labaad natiijada eegana waxay keentay in ay Israa'iil dadkii ku noolaa oo lagu qadaray iyagu badina 3 milyan iyo bad yahuuda in lagu qasbay inay galaan dhulka hoostiisa ayna ku noolaadaan خوفا من الصواريخ صواريخ ده أمر كتل مامي مدحوينها دالك سلطة فلسطين عباسية محمد قمكرين بربو ساو رنجري إما كانوا واركا واحد قواتي مركا محوسمي مركاسي 3 مليون هي شام بقولو كونو قاف إيا هوغو هوسجري ونيكا لدعد أبو عبيدة إيا حكومة عيدا ماذا حماس وقولوني قرا إما كوان يجيري جوجيرانا كصوبحا أو ألا أقبلي هذا الكيس ونتنيا هلا أقبلي عرفتها صحيحة علي waxay ka dhacday meeshaas arinta saddexaad ee dhacday siyaasiyan ma sheegnaa siyaasiyan waxa dhacday inuu madaxweyne ra'iisul wasaare Netanyahu uu jaraa'idka hor iman kari waayo oran kari waayo dagaalka waan adkaanay amba waan laga adkaaday midna boor shib laba shay baa laga hayaa wuxuu dagaalka waan joojinaynaa meel anaka uma joojin bakayga bis taa waa la maqlay laba arinta kale la maqlay cajiibka waxa ay wuxuu waxa ay qasbaya ciidamada inaan dagaalka joojiyo had labadaba waa qalad hadduu isagu qasbayana waa qalad oo cabsooday hadday ciidamadu joojinayaanna waa qalad dhinacaas waa maxay waa siyaasiyan arinta afraad inaan ilowna siyaasiya ay loobe kamid ah waxa weeyaan sumcadda Israa'iil ee bariga dhexe dhulka gashay dawla cadiima way bawaaday dawla bahiiba dawlad cusub way bawaaday dawlad ay khatar geliyeen jabhad bay noqotay marka taasina way taatay arrimahaas arinta shanaad siyaasiyan aga nataa'ijta mujtamacii yuhuudu kalsoonidii uu la noqday wuxuu yiri meeshan waxay ahayd meel aan u imanayna ku noolaano laakiin waxay noqotay meel aan ku dhimanayno marka la budda min badiil waa inaan dhulkayga iska noqono in badan baa diyaar u in noqdaan dhinacaasi waa siyaasiyan dhinacan iqtisaadiyan maxaa dhacay 4 milyaar oo dollar oo Mareykan 12 cisho Israa'iil ku khasartay waa koob natiijada Gaza waxay khasaaray ma jirto laana Gaza khasaaray ku jirtay bakaro maxma hinba waxaa dhacday maartay al-ghaariq qaariq qofka هو المقورمة بطل لقيس وما بلغ مساكين بكره بحياة لكن أقول فيش 4 مليار أو دولار يكو خسارتي كو يطبعن 20 عدد لبو ديارة دي با فريسن كنواي مطاركي تل أبيب وأمركي هو رئيس تل أبيب لقرعه أما حي تاسرة وماليا أرد صدحات مالية أو أم حي أرد صدحات مالية وحويان وحا كود هذا دمان تكاندي أي عرفت لهايين أو دن إضراب شخدي جوجي taasina dhaqaale bay shib kasi soo dhacaysa arinta afraad ee dhacday waxa weeyaan suuqii socodkiisii uu istaagay
xarakadii milaaxiga koonkuna way istaagtay. Israa'iil waxaa lagu sameeyey waxa loo yaqaano waxaa lagu sameeyey Gaza 16 sanay cunaqabateyn ku haysay 11 cishaydan cunaqabateyn lagu hayay way qaadi kari waayeen لأن القرآن كان شيء يسموها أحرص الناس على حياة ضروري شيء جديد وكي أريتها وين عادي أي خدعة عادي واحد يكون عادي مهليا كثير واحد سياسيا تنوع ماليا عسكريا بعضنا عنا ميلاتيرهان ما حد عاي إسرائيل وحيلة هيد صدق هدف بنجاري نابت كو هدفك وضوحها إضعاف المقاومة إلى المقاومة إضعاف النوع وكو استراتيجية رسعة وإن المقاومة لبو قتل رؤوس المقاومة dadka resistance-ka iska caabinta wada ee khatarta in la laayo madaxdooda waa talabaad. arrinta saddexaad ee ugu dambaysa maxay ahayd in la isku dira shicibka Gaza iyo muqaawamada oo dhawaan daalaya dagaal ma doono nabad ma doona sida difaan doona san ma doona la daaya naga daaya dagaalkii waxan saddex istaraatiijiga maxaa dhacay markaa waxaa dhacday kontraarka cagsiga baa dhacday natiijo cagsiga dhacday kow saddexaad baan ka bilaabaynaa maxaa dhacday shacbigii markii sidaa dagaalka loo joojiyay labadii habeennimo ama labadii subaxnimo marka dagaalka loo joojiyay salaadii subax masaajida Gaza oo dhan irtajat bitakbir Allahu akbar ciid baa la mooday wadifa walqudus wadakhil gudaha meel walba waa la qeyliyay banaabaxyadii baa isxiray labo waxaa soo banaabaxay shacbigii Gaza intayna tagin guryahoodii ka burburay waxay u yimaadeen madaxdii muqaawamada waxay ku yidhaahdeen waad mahadsantihiin waana difaacdeen أقصى دفاعين مسلمين تدفاعين نوك تدفاعين قرن كدفاعين ودفكي لا رواك لغويرنا ويسيك عنده أرنت صدح خد على وحويان قف كستيب مركة وإلميه سوايو أما النفتي سوايو وحو لها وأرنت سوا أصبرنا محايلي لأجل المقاومة ريسيستانسكا أسكا عابنتا قوميسيكا إيو لأجل القدس والأقصى